سائلك تدوالي وحويدينيا لعقها يوتيوب كلاقا قاتو يوتيوب بالا فرطا dad badan baa sheer garay iyo subscribe garay la yiraahdaa kadibna shirkadda YouTube ku dadka lacag ay siisaa waxaana lagu siiyaa inta qofka saailkii soo qoray xayeysiis baa boggiisa lagu samaystaa markastoo dadka bogga ku xiran ay bataan xayeysiisna isagu ogolaaday in lagu sameeyo wixii lagu xayeysiiyey bogga isagu uu lahaa dadka badanna isagu uu keeno ku soo xiray commission iyo percentage laga siinaya warka nuxurkiisu dadka uu keenay lagu xayeysiiyay baa wax yar oo khidmada lagu siinaya haday mas'aladu tahay marka xayeysiintaas lagu siinaya waxay ku xiran tahay waxa la xayeysiinaya ma xalaal ba mise waa xaraam haduu wuxuu xalaal wada yahay wixii laga helo waa xalaal kamana duwana TV-gi waxa xayeysiinayay idaacadii waxa xayeysiinayay iyo website-kii waxa xayeysiinayay waxba kama duwana ama ninkii lugtaba ku wareegayay ee badeecada suuqa dadka soo tusayay wareejinayay ee wax lagu siinayay kama duwana way dadkan isaga magaciisa soo raaceen isagaana ugu yeeray oo keenoo meeshan ku xareeyay waxaan loo sii daayeen isaga idankiisa yahay inuu wax ku qaatana wax curfi oo lagu heshiiyay hadduu waxa la xayeysiinaya xaraam wada yahayna waxa laga helo dhan xaraam way haday isku jiraan wixii xalaal wixii laga helana waa xalaal wixii xaraana wixii laga helana waa xaraam wuxuu la mid yahay dukaanka badeecada xalaash iyo xaraamta lagu gadayo badeecad buu gadaa raashin buu gadaa cunno gadaa cabitaan buu gadaa sigaarna waa gadaa qadarka waxa uu gadaa xaraam laakiin raashin iyo cabitaan la gaday xaraam ku noqon maayaan ku dambaabaya qadarka xaraanta uu gaday qadarkeeda waana masalada culimadu ay kaga hadlaan qofka xoolihiisu xaraan iyo xalaal isugu jiraan in qadarkii xaraamtaana xaraan ka yahay qadarkii xalaasha ahana uu xalaal yahay qadarka xaraanta wixii ku aadan ugu dambaabayo intaa weeye nuxurkeedu ee adu maxaad xayeysiisaa waxa boggaaga lagu xayeysiisa xalaalnimadiisa ma iska hubtaa mas-uuliyaddu qofkii bogga lahaa bay u noqonaysaa